masaajidka ka xaadir cilmiga islaamka iyo diinta baro kuna dhaqana lagaaga baahan yahay. Assalaamu calaykum. Message-ka waxa iska leh wiilasha Soomaaliyeed ee Afrika jooga, dhalinyarada, the youth aan la hadlayaa, youth, dadka yaryar ee dhalinyarada ah. Fariintaan iga qaata, waxaan ahay qof aad khibrad u leh, wadamo badan soo martay, qurbahana intaasoo sano ku nooleed. Waxaan rabaa aniga wax badan iga baran kartaan in dhalinyarada dadkii idinka horeeyay idinkamay taxadirin, wadankii waa idinka burburiyeen, caafimaad iyo waxbarasho iyo waxaan ku leeyahay dhaqaale iyo shaqooyin midna idimay siinin, midna idima taagin. waxa idin taageen nacayb iyo dagaal iyo waxaan ku leeyahay dad inta lagu duulo la soo dilo laandheero la isku bixiyo. waxaan rabaa dadkaas inay amaan iska siisaan, waxaan rabaa inaad dad noqotaan naftooda iyo dantooda ku mashquulsan. waxaan rabaa dhalinyaro inay istaagtaan, isku tashataan, dadkan Afrika adduun weynaha waxa waaye dadkoodii ayaa ma aragtay jidka u sii xaaqay. dhalinyarada dadkoodii ma aragtay dawladahoodii ka taxadaray, waxaan ku leeyahay aabaha ayaa ilmihiisa ka taxadaray, laakiin idinka waxa waaye qasaare ayaa idinku dhacay. waxa waaye waa bladin burburiyay, wadan amni ahna waa la idin diiday. 30 sano hadaa jirtid most likely waxa waaye maad arag ma aragtay nabad maad arag. marka waxaan rabaa inaa inta istaagtid aad waxaan ku leeyahay shaqooyinkana aad ka faanin. shaqo allaale shaqadii kugu soo aada, reer hebel baan ahay shaqadan ma qabto iska daa. waxaan rabaa inaa gymka iyo meelaha activity-yada iska xaadirisid. waxaan rabaa in aad ka fogaatid meelaha jaadka, balwada, waxaan ku leeyahay fadhi ku dirirka, waqti dhumiska, waxaas oo dhan isaga tag. waxaan rabaa in ma aragtay marna aad any shaqo oo shaqo kasta wadamadan aniga aan joogo intaas sano aan ku noolaa, qofna shaqada kama faanto. shaqada waxa waa PhD ninka haysto hadii ku soo aado shaqo uma aragtay any shaqo wuu qaataa. marka shaqooyinka qofka jahliga ah oo qofka ma ayaa shaqooyinka ka faana, maxay dadka idhahay waxba kaama gelin. waxaa la rabaa in adiga lugahaaga aad ku istaagtid, aad self sufficient noqotid. wax ay shaqo ka soo horbaxda ka shaqee, gymta ka xaadir, masaajidka ka xaadir, cilmiga islaamka iyo diinta baro kuna dhaqana lagaaga baahan yahay. reer hebela aniga ahayo saan anaga sameynaayo, waxa mujtamaco dhan waxay sameynayaan hadii qaldayin ha ka daba qaldin. adiga naftaada ma aragtay example u noqo. shalay meesha taagneed ha taagnaanin, ma fahmino, ha niyad jabin. naftaada dhis, jirkaaga dhis, labiso, nadaafada ku dadaal, jaad iska ilaali, khamre iska ilaali, drugs iska ilaali. waxaan ku leeyahay nin nadiif ah noqo, saa berito xaas wanaagsan iyo ilmo qurux badan aa u soo saaratid. adduunka meel walba aa ka joogtid, hana soo tahriibin, ha soo tahriibin.